saldhigga booliiska degmada Cadaado ayaa lagu soo bandhigay lacag sida la sheegay faalise aheed oo la doonayay in lagu faafiyo gudaha magaalada Cadaado. Maamulka degmada Cadaado iyo taliska booliiska degmada ayaa iska kaashaday soo qabashada lacagtaasi oo sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdilaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ay ku soo wargeliyeen bulshadu. gudoomiye Tootole bulshada ayuu kaga digay lacagtan oo ah dollarka Mareykanka isla markaasna sida uu sheegay aan hayn midda saxda ah ee la isticmaalo. soo qabanay qofkii sidana waa xiran yahay qofkaasina wuxuu sheegay lacagtan raadkeeda iyo say ku timid inta magaalada ku jirto asaga oo arkay booliska ayaa baaritaan ku haya iyo kiiskaas cid kastuu galo markuu soo dhamaystirmo ayaana si rasmi ah ummadda ula wadaagaynaa. haddeer waxaanu u dadajinay maadaama kiiskan u sax ka hor aan soo qabanay lacag fara badan oo faalse ah ayaa magaalada ku jirta. dadkii intaan yartaa wadana way cadeeyeen horena dad kala markii maqleen warkan u sheegay marka sidaas daraadeed waxaan rabnaa dadka reer Cadaado waxaan uga digaynaa in ay san qaadan lacagaha faalsada ah oo suuqa ku jira oo ay ka digtoonaadaan cid kasta oo ay ku arkaanna ay nala soo xiriiriyaan oo saldhigga degmada iyo maamulka degmada ay la soo xiriiriyaan lana qabto. intaas waxaa dheer dadweynaha reer Cadaado waxaan rabnaa in maamulka degmada iyo taliska booliiska la gacan siiyo. waxaad arkaydaa mararka qaar markii la shaqaynayo dad hay'ad caqabad ku ah shaqada ilaahay in ku dhaarshay qofka lacag faalisa inta keena ummadan ku dhacay dadka laga qabanayo qofka qabanaya ma in la gacan siiya mase waa in hay'ad la yiraahdo u kaadi anagu aan aragnay hadda waa in la gacan siiya dadkan hore loo dhacay hore lacag faalisa loogu dhacay mid lacag Soomaaliya lagu dhacay maanta in dollar lagu dhaco ummaddu qaada karno. gaashaanle Cumar Macalin Cali taliye ku xigeenka saldhigga booliiska degmada Cadaado ayaa maamulka degmada kaga mahad celiyay ka hortagida lacagtan been abuurka ah inay ku faafto magaalada. nala shaqeeyay noo soo sheegay hantidan faalsada oo dadka lagu dhacay lacagtan dollarka oo faalsada oo dadweynaha rabay lagu dhaco waxaan kale u mahad celinayaa maamulka degmada qaasatan gudoomiyaha oo naga gacan siiyay hawshan isku soo xiray aad nagala shaqeeyay gudoomiyaha degmada aan u mahad celinayaa iyo dhammaan ciidanka booliiska oo hawshan ka soo shaqeeyay inta ka bacdi lacagtan waa lacag faalsa inteedii badneedna waxay ku jirtaa magaalada waxaan uga digaynaa inay lacagtaas ka digtoonaadaan meeshii lagu arkaan ay laamaha amniga soo wargeliyaan. dhamme cali cabdi cismaan dembi baaraha booliiska degmada Cadaado waxa uu soo bandhigay baaritaano hordhaca oo ay sameeyeen. waxa uu sheegay lacagtan cadadkeeda hadda ay hayaan oo $500 gaaraysa inay ka badneed isla markaasna booliisku ay wadaan baaritaano arintaasi la xiriira. lacagtaas falsification-ka ah oo dollarka ah waxaana u xiran nin wuxuuna sheegay 2 nin oo kale oo barnaamijka kula jirtay haddana dabagal lagu yahay dambiyaduna waa ka hortag iyo ka dabatag. qaybtan hadda waan qabanay inta kalena waa ku daba jirnaa lacagtaas wuxuu sheegay inay ahayd $10,000 haddana waxaan haynaa $500 oo hordhac ah 500 ninkii u dhiibay iyo lacagta 10,000 ninkii waday labadaas nin waa maqan yihiin ciidankana dabagal ku haya waan soo dhamaystireynaa. shacabka iyo deegaanka waxaan uga digaynaa inay iska jiraan lacagaha noocan oo falsification-ka oo deegaanka